maanta waxaan safar dheer ku tegi doonaa dalka Mexico oo ka mid ah dalalka ugu taariikhda iyo dhaqanka hodansan dunida. Waxaan baran doonaa ilbaxnimooyinkii hore ee dalkaas sida uu u qaatay xornimadiisa, dhaqamada ay caanka ku yihiin dadka reer Mexico, cuntooyinkooda, muusigooda iyo meelaha dalxiiska ee ugu caansan. Haddii aad jeceshahay taariikhda iyo dhaqamada kala duwan, muuqaalkan waa mid adiga ku gaar ah. Mexico waa dal ku yaalla waqooyiga Ameerika. Wuxuu xuduud la leeyahay Maraykanka waqooyiga, Guatemala iyo Belize dhanka koonfureed. Caasimadda dalka waa Mexico City oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dunida. Dadka ku nool Mexico waxay ka badan yihiin 1.3 milyan oo qof, waxaana luqadda rasmiga ah Isbaanishka. Dalka wuxuu leeyahay buuro, keymo, saxaro iyo xeebo qurux badan oo soo jiita dalxiisayaal badan. Kumanaan sano ka hor, Mexico waxaa ka hana qaaday ilbaxnimooyin waaweyn oo taariikhda dunida caan ka noqday. Mid ka mid ah ilbaxnimooyinkaasi waa Maya. Dadka Maya waxay caan ku ahaayeen aqoonta xiddigiska, xisaabta iyo dhismaha magaalooyin waaweyn. Waxay sameeyeen jadwal sax ah oo xitaa maanta cilmi baarayaashu ay la yaaban yihiin. Waxaa sidoo kale jiray boqortooyadii Aztec oo ahayd awood weyn. Caasimadooda Tenochtitlan ayaa ahayd magaalo qurux badan oo ku taalay meel hadda ka tirsan Mexico City. Aztecku waxay lahaayeen nidaam dowladeed iyo dhaqaale aad u horumarsan, balse qarnigii 16aad waxaa dalka soo galay ciidamada Isbaanishka oo uu hogaaminayay Hernán Cortés. Sannadkii 1519, ciidamada Isbaanishka ayaa gaaray Mexico, waxayna burburiyeen boqortooyadii Aztec kadib dagaallo badan. Muddo ku dhow 3 sano Mexico waxay ku jirtay gumaysi Isbaanish ah. Dadka reer Mexico waxay bilaabeen halgan xornimo doon ah oo uu hogaaminayay Miguel Hidalgo. 6 Sebtembar 1810 ayuu bilaabmay dagaalkii xornimada, waxaana ugu dambayntii Mexico xorriyaddeeda qaadatay sannadkii 1821. Maalinta 6 Sebtembar ayaa maanta loo dabaaldegaa maalinta xornimada Mexico. Dhaqanka Mexico waa isku dhaf u dhexeeya dhaqamadii asaliga ahaa iyo dhaqankii Isbaanishka. Qoyska ayaa qiimo weyn ku leh bulshada reer Mexico. Waxaa muhiim ah in qoysasku isku yimaadaan xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha. Mid ka mid ah xafladaha ugu caansan waa Dia de los Muertos ama maalinta dadka geeriyooday. Dadka reer Mexico waxay xusaan eheladoodii dhintay iyagoo qurxinaya qabuuraha, diyaarinaya cuntooyin gaar ah, isla markaana qabanaya xaflado dhaqameed. Mexico waxay caan ku tahay muusiga mariachi. Kooxaha mariachi waxay xirtaan dhar dhaqameed qurux badan, waxayna isticmaalaan gitaaro iyo qalab kale oo muusig. Heesaha mariachi waxaa laga maqlaa aroosyada, xafladaha iyo munaasabadaha qaranka. Waxaa kale oo dalka caan ku ah qoobka ciyaaro dhaqameedyo kala duwan oo muujinaya hidaha iyo dhaqanka dadka reer Mexico. Cuntada Mexico waxay ka mid tahay kuwa ugu caansan adduunka. Tacos waa cunto dhaqameed ka samaysan rooti jilicsan iyo hilib ama khudaar. Burritos, enchiladas iyo quesadillas ayaa sidoo kale ka mid ah cuntooyinka ay jecel yihiin dadka reer Mexico. Basbaaska iyo galleyda ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee lagu isticmaalo cunnada dalkaas. Mexico waxaa ku yaalla goobo taariikhi ah iyo xeebo qurux badan. Chichen Itza waa mid ka mid ah mucjisooyinka cusub ee dunida, waxaana dhisay ilbaxnimadii Maya. Cancún waa magaalo caan ku ah dalxiiska iyo xeebaha quruxda badan. Mexico Cityna waxay hoy u tahay madxafyo, dhismayaal taariikhi ah iyo suuqyo waaweyn. Mexico waa dal leh taariikh qoto dheer iyo dhaqan qani ah oo isku daraya ilbaxnimooyin hore iyo nolol casri ah. Muusiga, cuntada, xafladaha iyo hidaha kala duwan ayaa ka dhigaya Mexico mid ka mid ah dalalka ugu soo jiidashada badan dunida. Mahadsanidin daawashada muuqaalka. Haddii aad ka heshay, fadlan like saar, share gare, kana subscribe gare kanaalka si aad ula socoto muuqaallo badan oo ku saabsan taariikhda iyo dhaqamada dalalka dunida. Taariikhda Asad Hagiyo, sheekadii ka dambaysay magaca ay Soomaalidu wada taqaan. Dunida maanta, hal abuurka iyo internetka ayaa beddelay qaabkii lagu gaari jiray guusha. Qofkii shalay ahaa qof